بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي مهد سبحانه وتعالى السوق يكيني بيت من بيوته قريه سكمذا نعمة وين ونعمة الإسلام نقول نعميي وآدي مارتي عالم كوير شعائرة إسلامكو آدي أطابانتهي على سوكو بكرمهن إنay shacaa'irtu ay badnaato oo azmaanta ay ku badnaato oo kala duwanaato ay kamid tahay islaamka sharafta uu iska leeyahay iyo sida islaamku uu yahay shay aad iyo aad maaragtay u xoog badan waxa weeye mar walba waxaa jira munaasabooyin khaas ah ayaa jira عيندان علماء لكل مقام مقال مقام كسول الجو هدو زمن وياي هدو مكان ويهبا هو اسكلي هاي مناسبات امس وحواي وخاصه اما مركاسي wax ku aadan oo looga hadlayo iskaleey wax yaro kooba waxa iska xasuusinaynaa خطبة هرتا يكون تعلق يسي انتنا اي مناسبة الى لادها الاستعداد للموت وما بعده لكن سنة كعصبة دي الى اين قارسية ايانو تعليجي دوناتاس وعادوكتي اننا مارتا يا بشان اي نكجرنا اي كمتها اشهر الحرم اي كمتها وإلهي سبحانه وتعالى قرآنك وكشيغي منذ إلهي سبحانه وتعالى كون كانوا أبوري سند إلهي إلو سميي سند كنو يهي لبايتون طبان بلود ويهي لبادت إيا طبان كبلودنه إليهين خواص وقوني إسكاليهين لبايتون كبلود وحاكو جرة منها 4 حرم إلهي وحاكمذا أفر أو حرمة إسكاله وح أجار هو تعظيم يوح لا إرادة شيء إسكاله تاسمع وح كبل لوضي وقت جمارة يا لحقيه معهم منذ أن خلق الله السماوات والأرض واي إلهي سماوات كالرضا مكو أبو ولا قبل أبوه يوم خلق السماوات والأرض وإلهي معايا سماوات كان أرلدان مركي إلهي أبوري أيامها هي السنوات هي شهورته مركاسي وحي يشين تحديد مركاسي يشين وحديث مركاسي يشين إلى حديث لكن قبل أنت نكون كان لأبورين وهو البعد بي هايين من الإبرة أي هايين وهي كبرهايين علم إلهي سبحانه وتعالى مركا وحال الجلايا هذا وحواي بله أشهر الحرمكو نبي عليه الصلاة والسلام حوله 3 متواليات حوله 6 وحريران 6 ذي حريرتي وحال صوب بلابي بالشيء هذا مركز ذي القعدة هذا وشوالك كحكتي سيدا تالي سومدو يقاني سيدا تالي كسوق الأويس أوي بلاها سبحانه إلى أشهر الحرم على لها وحيا ببضان أو رأي إسكاليه حتى وحا تاريخ الوهاية بدك جاهلية أو هراء أسام كوري أيضا هذا مركز الدين عن لهين بلاها سوا حرمي جرين waxay iska ilaali jireen dunuubta isdilka iyo waxyaabaha markaasi ay ku kacaan oo macaasida ay ka dhowrsa jireen ayagoo diin lahayn waa ilaali jireen oo hadii midalan ba dagaal haduu jiray horay u jiray bisha oo maartay ashurul xumka day soo gaaraan oo halkaas looga jeedo waa jooji jireen waxaad u malaysaa
inaan jaahiliyadii kasii dambayn annaga waxaan dadahoo isdilaaya oo mashaakilka oo maaragtay iska noqday xayawaanka maalaa yacqilka ka liita waxay cuquusha waa la qaadaya dadku hadduu diinta uu ku camal fali waayo caqliga ilaahay ku abuura waa jawhar nicmo waayo moogta nicmada waa laga siibaa markaas wuxuu ku soo herayaa ahlu shar kaliya u noqonaa dadkana waxay u qabaan meesha dad waa joogaa suurad waa joogtaa laakiin dadnimadii insaaniyad iyo sharafta insaanka iyo karaamadii waa dhuntaseeda waa ka maqan tahay haddana haddaa fiiriso waa la daraaseeyey bilaha ugu khayrka badanne kuwa aan ugu dembiga badannahay u badan yihiin markii la daraaseeyo saasaa imaahaysa yaaba war ka haayaba nin walba wuxuu dili karo u dilayaa war xaajira ayadoo wax walba markooba ay xaaraam yihiin dilku xaaraam markaas saddex kaliya ayaa la baneeyey inta kale waa la xarumay laa yaxillu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa halaasin uu dhaha nabigu xadiis saxiix waaye qof maaragtay qof muslima dilkiisu xaaraam waaye ilaa saddex maahee saddex bis ayaa la baneeyey intii kasoo hirtoo la dila haddaa aragto waa baatil asayibu zaani qof waxaa weeye hadda ka hor guursada nin ha noqda naagsaa noqdeen ee zina ay ku caddaatay markhaati ku caddaysa weliba afara hal rabaa hal iyo laba iyo saddex hadday arkaan ma sheegi karaan hadday sheegaan ayagaa la garbaashaa waa ilaahay soo dadkiisu asturaa bal fiiri waana saxeeday iyo lagu xaxamaha iyo waa la sheegaya laaha والنفس بالنفس نف كلا دشي قف دلي والله دلا إله هلا دلا ده موقت نفو دلا حق ده هو كدلي والله دلا يا وتارك لدينه المفارق للجماعة يتكسد عاد ومدين كيسة كتجي أو جماعة إسلام فارق هو مرتد كواي أصلا مسلم ما يوفي ده إسلام كبح فيقتلوا ولا الدلاء حقا للدلاء انتاس وحان هين وإلا الدلاء بناتها مجلس انتاس وحان هين لو ديقيسو هدر يهي هدر وبلاش واي موقتح كالسوقات لهين مجره هذه قفا سبب بنايستي ما لنت قيامه أي لا يجاسنا حبدان في ذا سيدادا يقول عدو بدفعان توردادا قول انتي وكسمهين عدك أيدي مجره إذ ما أقبل من جدتاس سبتوها دادو جدا ماشي وكنا عادي ما حسابه كبلوت ميا مارت يعني ما كبجن هاي ميا كاسابة لفت الكيس وحول إيراني سوى رباه الكيس شروطه بس كلامه هذا كتاب آخرنا كتاب رمي إمارة مسابقة رمي ما هينه شروطه ولا لفت الكيس علمي وليه كبلوت كلفت الكيس علمي وليه سجن ما سلفت الكيس هذا الإسلام أمريكا لو مجيده أما وحلو ما ليه كرم ما لنت قيامه ما يرد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإلهي وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب رحيم فالفيل هذا قرآن لكن وحاب ايش تعالى قف كان وحان سمينا يا قرآن وحو شيغا ايو حديث نبي شيغا ايو iyo qiyaamo ma rumaysan yahay su'aalaha kay ma haysan waqtan ficilada iyo qaabka hadalka iyo waxa qaabka uu dhaqmayo markii la fiirsho ma rumaysan ilaa waxaad rumaysanta waa ninka hadda uu dadku dilo waayo inuu waxa uu cuno raadiyo waayo inuu wax helo wax qabsado meel wax ka helo rabaa soo ma iska cadeeday ee taas waa rumaysan yahay وكان دبكاس جهدغاس او غلو وايا وا ايمانكيسي وا رميسay midaan aakhire ma haysa haduu saas rumaysan yahay jidkeedii uu qaadi lahay taas waxay cadeeyaysaa inuu san rumaysanayn ha ma rumaysan duu rumaysash waa dad maartay waa isqad hadii la miisaaliyo waayo oo xataa aqliga miisaan lagu saaro marka bilaha xurmada leh
bil waa soo dhaafnay bilna hadda maaragtay gebagabaysii maraysa waaba asbuucan soo socda waaba gelaynaa bishi kale gelaynaa muharram ku xigta Soomaalidu sakay u yaqaaniin marka muharram aydan waxay ka mid tahay ashhurul hurumka ay ka mid tahay ashhurul hurumka ay ka mid tahay khawaas goonihi iska leedahay marka maxay khawaas gooni iska leedahay sanadka bilaha markaasi oo 12 bilooda ayay maaragtay sanadkii bishii koobaad waaye islaamka ha noqoto qabla al-islaam ha noqoto bisha koobaad oo sanadka 12 bilood oo la tilmaamisho waa taas cirkay ku taalay moogta hilaal waaye moogta xisaab la sameeyay wax la isku googooyay ee la leeyahay markaasi saasa bishiya waa wax gaaladu ay sameeyay nabi alayhi salaam bisha markii ramadaanku uu ka hadlay inna ummatun ummiyatun oo dhahay la naktubu wala raw annagu waxaana ummadanahay ummiyaanahay dadka dhan ma wada ahan waxna ma qorna waxna ma akhrino haddii bisha u jeedno waa ku soomeynaa haddii kalena soomi mayno dibkaas banda gilaa waa moogta bish maasay ka soo baxay waa loo jeedaa waa dhacay waa soo baxay ilaahay yaa wadeeday cid shuqul kula ma jirto wax socodsiyaaya ma leh dayaaradda nima wada waa sancabani aad moogta adhow duqoobe meelaha lagu tuura amba waaba dhacaysaaba waxa waa baabaa moogta mundu adduunyada ilaahay abuuray bil oo joogsatay arkay leeyahay la soo sameeyay leeyahay farsamayaqaan loo dira yaa arkay awoodda ilaahay qoraxdu farsamayaqaan loo dira ma aragteen ma la arag inma amru idha arada shay'an an yaqula law kun fayakun wa buk ilaahay saas ahaaba ilaahay ku xugmiyay bis inay inta adduunyadu jirto ay soo baxdo ay dhacdo oo falaga ay ku wareegto amar ilaahay oo la xugmiyo waa ma ka leexa karto ma wax loo naqayo ma jiraan qoraxdu sidaas oo kale intood waay la'alla haday madoobaadaan waa inkishaafaysaa taas iyadana xigma ka dambaysa xigmada ka dambaysa waxa weeye qoraxda iyo dayaxa dadka jaahiliyada ama hadeertaan baxata dada makhluuq waa moogtay waa la caabudi jiray markii ilaaha laga dhigtama maadaama kuwa ilaaha ka dhiganay inay aqli lahayn oo istakhiifin yihiin waxaa la tusayaa waxaanu inay makhluuq yihiin oo Allah khaaliqahu ilaahay ma bedel waxna kuma dhacaan moogta inay makhluuq sidoo kale oo xaadisa ku imaa karto inay yihiin la tusaa hadda ilaahay oo meel xanuunaysa waa ilaahay waxa soo dhawa kana zayn ama isbedela maala la waxa la tusaa marka waxa ay caabudayaan waxba qiimaa inaysan ku fadhin halaas oo la jeedada u madoobahayaan iyo dayaxay qoraxdu saas waay xigmada ka dambaysa hadday saas timaadaan hadda tusaale waaye saas isaga joogi maayaanoo la dhihi maayo dadaaf soo farsamayhay wala xaal waxay yahay tusaale waaye ka bacdina inkishaaf waa ma igaaba fayd maayo bishaan marka dhala haysa waa taariikhdii oo maaragtay hijriyada lagu xisaabaa ilaa hijriyada waxa loogu xisaabayo hijriyada markaasi waqtiga ay bilaabanayso nabigu Makka ka hijroonayo oo Madiina uu tagayo waxa wax islaamku waxa wax ku xisaabto litaclamu adad as-sinina wal hisaba sabaadka arladan iyo waxaan la abuuray waxa weeye iyo markaasi waxa ku jira litaclamu adad as-sinina wal hisaba waa ina ogaatiin sanooyinka cadadkooda iyo xisaab ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas aayada uu abuuray in lagu qudrada ilaahay waxdaan lagu aqoonsan marka hadda bishaan waawey maxay tahay hadda dhalahaysa waa bishi markaasi oo hijriyada markii la yiraahdo sanadka hijriga oo muslimiintu ay samaysteen
bisha anagu lama sameyn taas ilaahay yaa sameeyey laakiin bishaas oo soo baxayso sanadka kuwa 12 oo sanadku yahay ayaa lagu beesgareeyo markaas lagu sameeyay lagu cabiray lagu ma cabirin xisaab la dejiyay wax غير موجوده waxaan saacadahan iyo dada samaysay mugtaanaga shaqo ku malihin waxaan iyaga ku soo qorteen jeebkooda ka samaysteen wax hadda markaas oo macluum oo la taaba kara maaha waxaan aan samaysano intaas waxay u jeedaan jawr iyo iimaan la'aan iyo dambi iyo khilaaf ay dadka diinta islaamka khilaafayaan u sameeyaan marka leeyahay taariikhda miilaadiya leeyahay miilaadu ciisa nabi ciisa rasuul ilaahay oo ahay asaga laftirkiisu markuu dhalahaayay dhalashadiisa waa jira marka sanadkaana jira sanadku adduunyaha jirtay ma ogtahay 12 ka biloodaa jiray oo sanadka 12 kaas bilood bil kamida haddana waxa way asbuuc kamida yoom kamida saacad kamida oo ku dhashaa saw wax markaas la dhoodhoobay kuma uusan dhalanin taasaa soo socotay waana qorantahay waa maktuubida laftirkeeda waxba aysan ka aqoonin oo beray u jeedaan aysan aqoonin oo markaas jahdan an diin al-islaam loo sameeyay ayaa loo sameeyay taas mar waa sodona la leeyahay ilaa waa hawe moogta mar waa tokow sodon iyo kow waa la leeyahay haday walba ka wada dhigi lahayn sodonka ciidaha kuma haysanay meelay waxaas dhigaysay meelay ka timid cid ugu ma jirto waa hawe moogta la sameeyay dadku waa loo sameeyay waa kaasaaleey anaguna aan wax samaysano ما قبل تاريخ أيام لنا نبي الله عيسى وحي كوري تاريخ مدونة ما جرته بني آدم كو أحمد تاريخي جادتك حتى حتى مؤرخين تعدان كصوت تغنو سيدان كلو مارتي وحاول المسلمين تي كسبين وهو مارتي حكد ما قبل تاريخ ليلة زمن نبي الله عيسى لشيس كوري ساسالينا لكن وحوي أيغو ساسا وحاكيا له أثر oo quraankiya ilaahay ku sheegay al-quruun al-qaabiliin dadka hore u tagay waxay sameeyeen wixii rasuul oo soo diray ziminkooda waxay sameeyeen wixii dhacay waxa way waayeen waxaas laakiin waqtiga ay ahaayeen taariikh meeshaas joogta maanta hadii la fiisho intaas laga maraa leeyahay ma jirto bani aadamku waxa markaas taariikh wax taariikh mu'arriqiinta oo gaal muslim waxa ahaadaba walow gaaladu hadda waqti dambe iska soo kaceen wixii markaas nabi ilaahay ciise miilaadkiisa ka dambeeyay ayaa taariikhda la sameeyay taariikhda la sameeyay taariikhda marka la sameeyayo adduunkan saan u dhisneeyo qorxaa soo baxaysa waa dhacaysa waxay ku bees kareen markay ku sameeyeen waxa la yiraahdaa shamsiya qorraxdan dhacaysa soo baxaysa ayaama qorraxda soo baxda waa dhacda maalimaa la yiri 12 maartay saac iyo 12 kale la isu geeyay 24 ayaa leeyahay markaas ay waa yoom waay markaas ayaamiha la xisaabay dhaheen tii marka waxa laga dhigay taariikha laga dhigay hadii laga dhigay dadka caalamka joogo muslimiinta ay markay ku amal falki diinta ay ka tageen oy gabgablayaal iska noqdeen halkaas lagu leeyahay waxay rabeen gaaladuna waa intaas halkaas lagu leeyahay dadkan waxay og yihiin ba malaha leeyahay marka waxa loo sameeyaa la leeyahay quraaniga tawteena awda waqtiga marka dadku muslimiinta waa dadku og yihiin caalam islaam hada caalam islaam waa marka islaamku waa jiraa wili sababtoo alxamdulillah muslimiina nahay wili maartay adduunyada lama duubinay moogta muslimku waa jooga intuu tabartiisu la akaataba هي عدد كيس انت الله هذا قرآن كاس واجوغيا ينبلغ عمل فلا هدي له ربه قرآن كاس كتاب كاس مصحف او قرآن كيالو او علامويه قرآنكو هو علامويه ان ضد عاملين كون كان يجوغان كو عمل فلا هل قف الله كدغ ديل اما ضد ير كدغ وا ضد جوغ شرط ما ان ما رتا ضد كدن كو عمل فلا او جوغتاس
هل قفوك عمل فلمرك إلا واي واصوص عطاها دوانا دودة وقاس قرآنك والي إله قرآنك قيامتك قوم ميس قرآنك هذا جديد سعادة قيامتك يدعيس قرآن وجهه قرآنك عمله ما هاي عند قرب قيام الساعة وقت النبي عيسى وما علامات كل النبي عيسى وجوغا قرآن ما بديره تجال سكهر إيه قرآن وجوغا إلى النبي عيسى قرآن كانوا وحكوا حكمنا أنت وجوغ طلبت السنة قرآن كانوا وحكوا حكمنا إنجيل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكتب كيس الله إمامه قال هذا كوا وحبب أقول وحبب كما يقانين بقى dadka hada kutubtaas in waqtiga la nasakhay waliba injiil waqtiga la nasakhay degdegay ahayd asaga oo dadkii sheeganayay ay baabi'iyeen ayagu oo asarba ana ka aalin asartiisa iyo waxa noo cadeynaa kitaabkeena quraanka waa annaga naqaano mooyaane gaaladu waxba injiil kama yaqaan waxay haayaan waxa wadooda waa marka la soo laaban maayo quraafada hadda waxa loogu sheegay maarteen ciisa imaahaaya dagaalka hadda bariga dhexe ka socda ama sameeshaan maarteen dhulkaan oo barakaysan oo qudus iyo dhulkaas ila meesha ka soo baxay meesha la yiraahdo maarteen baabuludi meesha ka soo baxay dhulkaan oo ka soo baxay xadiis saxiix ku soo aroortay moogtahay waxa nabad uga dhici la adahay oo yahuudan maalin walba dagaal wad oo kuwan kale u iga jiiday moogtahay iga u wadaadaaba sida dadkooda kuwan masiixiinta waxay og yihiin male waxay leeyihiin nabi ciisa imaahaye u sii gogol dhigo soo dhaweeya idinku inuu beri ka yahay ma oga hadda waday islaam waayan qoorto ka gooyaha war uma hayan markaas waxay idinka wadiyahay yaan meesha cid kale ka abuurmiyo waxba ka abuurmiyo waa siraha yaal meesha saas waay saas isleeyahay laakiin waxba kama jiraan waxooda waxbana wax heshiisa kama dhacayaan qiyaamada dajaala dhalanay nabi ciisa soo baxay dadka waxa weeye cilmi badan oo qarsoona jira dadku wixii markaas ay kacana iskala kacay waxana wax ka dhacay saas leey waxba ka hagaagi ma meeshaas wax ka hagaagi ma jiraan maayir aqeedo oo baadil ah oo maartay asaas iyo muslimiin ayagu waxa ay diintoodii ka tagoon marjic lahayn oo iska daan raacda ayaa jooga meesha dad daan raacda ayaa jooga meesha dhankaas hadda inaan aadama doonin kaliya waxa waaye inaan isku baraarujino waxa weeye sanadkii maartay hijriyada rasuulkeena kaleey salaam Makka oo ka hijrooday madiinadu taa ogtiin 13 sano markii bacda al-bi'sa ayuu nabigu Makka joogay meesha waxaa joogay dad cawaan oo maartay diin laawayaala diin heewaa dhib badan yahay moogta oo dhaqan haysta inna wajadna aabaana ala ummatin wa inna ala aasari muhtaduna wa kuwa dhaheena moogtay markuu ilaahay ka xikaayoyay kufaaru Makka markii diintu waa diiday moogtay bal qaaluu inna wajadna aabaana ala ummatin وإن على آثار هذا تعواس مرة عيني لهنا حق يا محكمة مجد آباء دين ينسوق نوضا يا شيء على أمة على ملة نيكوضا دين أيغو هيستا دين توحوي كما تدين تدان أدوك واحد دين هيسا مجران لكن دين تمتى الدين صحة بس مارته واحد اسم الدين وانا غنيسا لغوية لكن دين تصحده الإسلام كلاوا إن الدين عند الله الإسلام لا يمن هنا قرآن على قول الدين كرالي إلهي كتيس لغيه الإسلام كوا وما عداه الضلال يكسوه رب هذه واحد حوكم الجرام مركا محير هذين آبادين ينسوق قارني واحد رقمه أبكسيرها وضنا وحسانه كسوانه وإن على آثارهم مهتدون خاد كي أي جديين أيام كهرونينا لكن محمد واحد أذيك وضعته واحد دور كلام بعيدين نشينا نقول وإن على آثار مقتدون مرنا وكوبا يهينا هينه ما أنا له هاي سمك كوري ماذين نبي عليه الصلاة والسلام وادي باطيها يان أنت النبي راعي
waxay dilaan waxay caayaan waxaasay ku jiraan dhaqankoodaasay rabaan in loo daayay rabaan gawaran horta dhaqanku inuu musiibo yahay hadda dadkii waxaa laga fuji laayahay jaahiliyadii horaa loo laabtay haddii wax dhacaan waxaa la leeyahay haye qola hebel iyo qola hebaalan haye maxaa dhaqan noo ahaa jiray oday oo jaahila oo diin waxba ka aqoonin wuxuu sheegay la aadaa la isla aadaa loo xeertama la leeyahay diinta owdaya de marka ilaahay diinta loo xaqdamo dhahay ya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuuli wa ilaahi shay haddaad ku murintiin isqabatiin ala isku qabto ilaahay rasuulkiisa u celiya ila kitaabillahi wa sunnati rasuulillahi wa tafsiirkoodaas u fasiraa mug ilaahay kitaabkiisa nabiga calayhi ilaahay oo qabsay moogta laakiin dhaxalow ka tagay moogta meeshaas loo naqdaa leeyahay haye waa la ismurmar dhaqan waa la haystaa soo isma haysto amba qabiil ha noqoto amba cid kasta ha noqoto amba dad ha noqoto amba laba qofood ha noqoto amarkii ilaahay ma la raaco waaya laakiin aayaddu waxay ka soo bilaabinaysaa yaa ayuha alladina aamanu marka horeba ilaahay cid kasta ma dhihineed isaas dadka iimaanka lahow ilaahay rasuulkiisa rumeeyeen oo moogto yaa ayuha naasu lama dhihin ilaan cid kale inaysan u noqonayna ilaahay ogi qofaan iimaan lahayn inuusan u noqonayn kitaabka iyo sunnada taasa ilaahay ogi marka waxa weeye intaas dhibaataa jirta suuradaha makiga oo dhan waxay ku soo degeen maaragtay mako dhibaatadii waa badatay heer waxaa la gaara marka rasuulka la yidhaahdo ninkan meel ha la saaro saan ku jiri ma karnee intaas waa weeye diinta ilaahay kalaamu rabbilcaalamiin oo ayaga dantooda ku jirto ayaa lagu kari la'yahay waxba ha la yaabina dadka waxa maslaxadooda ku jiraan inay diidaan basharka bani aadamka min abuuna aadam laga soo bilaabo ilaa an yarisullahu al-ardha wa man calayha wax basharka ku jira waaye wax shaydaan oo la tegay waaye dadku badankooda intii aqaliyada oo ka fakata intaas ahlu janna naqanaysa aad jannada dadkeedu u yaryahay xadiis saxiixaynka kulli waxaa soo arooray ilaahay quraanka waxa uu dhahay moogta la amla'anna jahannama min aljinnati wan naasi ajmaciin u dhah daaru ilaahay mare moogta naarta jahannamo naaraha dhammaa loola jeedaa todoba dabaq waa naartu oo kala hooseeya oo mid walba mid ay kasii hooseyso waa ka kulusha waxaa u dambeeyta naarta haawiye la yidhaha u dambaysa waxaa gelaya munaafiqiinta ummaddan ummatul muxameda munaafiqiintooda iyo fircoon qoladiisa waa uu dembi badan yihin munaafiqo gaalku waa ka xun yahay diin uu sheeganaya islaam ma uu leeyahay saas uu leeyahay islaamkiina ma rabi oo dadkii uu gooyo waay maxaa munaafiqiin jooga munaafiq yaa haddii la yidhaahdo su-aashaas waxaa la weydiiyey annagu ma su-aal mana ka jawaabayni mugta xudayfa binu lyamaan saaxibu siri rasuulillaah waa taqaanii saxaabigaas jaliilka asaa munaafiqiinta ilaahay oo nabigu bareeqay waqtigii uu joogi jiray saxaabigaas nin kastoo munaafiqa asoon maaragtay dadka isku darsan yihiin moogta salaada masaajidka ku dukaayaan mijiyaadka waa aadayaan wamaca daalikana islaamkana ma rumaysna nabiga inay dilaan ay rabaan in adduunyada qarabtay la diintan laga baxayna gaalka waa ka xun yihiin maxaa la gaalka xagga uu ka joogo way iska celiyo waysa inuu gaal yahay rumaysan ninkaas wax ka dhib badan ma moogta masjidka rasuulka calayhi waqtigaas waa weynaanay inta nabigu joogay saddex waxaa taariikhda lagu hayaa 300 oo nin oo munaafiqiin ah ku dukanaya ka waran oo dadka ku dhex jira safka dadka cariiraay maanta caalamka maxaad maleeyaysaa ya maba lala gambaay hadda xudayfa waxaa la weeyey markaasi man nifaaqu yaa leeyahay markaasuu yidhi an taquula bilislaami walaa tacmala bihi waa inaad islaamka ku sheegato oo muslimnimo sheegato kunaadan camal falnow dhar bal fiir hadalkaas islaam waa sheegaysa mana ku camal falaysid fa anta munaafiqun u dhah hadda marka anaga jawaab ma naga rabteed saxaabigii khawaastiisa laga dhigay oo ilaahay rasuulkiisa waxyaabaha rasuulka nin walba wax khawaas uu keeni jiray ninkay shaqadiisa ahaaday
ninkaasaa maaragtay hawdha warkaas ku jawaabay kutubtay ku taalaa mudawan waaye inaad islaam aad ku hadasho islaam sheegato kunaadan camal falin hadda meeqa islaam sheegto markuu camal falo weynaa maxkamad islaama maaragtay oo loo dacwoohayo ya xafiis ama meel kutub quraana yaalo ee la leeyahay waa la haystaahe dadkan waa soo dacwoodeene ha lagu kala bixiyo quraanka xagee maanta adduunka xagee ka jooga goorma ugu dambaysa wax kasta oo asarti islaamka waa la lumiyay waxaana lumiyay dadka muslimiinta sheeganaya malaha munaafiqiina nahay xudayfa saasoo nagu xukminaa runtii xaqiiqa ma dad hadda jooga ma ahaday ninkii takhasuska ku lahaa nifaaqa warkiisaas waay mudawan waay markaas walba diinti waa taalahay moogta yaaba lagu camal fanadila rabo diinti waa taalahay moogta marka wax laga yaabo waay haddaan isku dhaqanno waxyaabaha soo baxay qofkii maanta diiniya oo yaqaan caalamka maanta shaad waa yaaban yahay qofkaas la yaaban yahay marka waxa way wax kala hadda muxaljaadkeen waxa waaye bishaan waa dhamaahaysaa bishii arshucumkay ka mid tahay wax badanaa ku soo aroora waa arkayseen xajki idoo ahay xajka macnaha acmaashiisa la sameeyay waayaday bishaan ay ku jirta xajku wuxuu leeyahay maartay miiqaad zamaaniya iyo mid makaaniya oo iska leeyahay miiqaadka zamaaniga wuxuu gelayaa bisha shawaal xaj waa xiro kartaa bas xaj waa xiro kartaa oo acmaashiisa wixii uu diyaar garoobi kartaa xaj waa xiro kartaa midka makaanigaane waa meesha qad walba markay arkaanta waxaa ka mid ah al-ihraamu min al-miiqaat qof walba miiqaadkay ka xarmayso meesha adduunkan meel walba laga imaayo annaga hadda waxaan ku aadanahay dhankan yamanan ku aadanahay meeshaas markaasi kuwaas miiqaadkooda miiqaad noo ah yalam lama leeyahay meesha dhul yamaneeday ahaa jirta laakiin hadda yaman ma laha yaman waa laga xooga maanto hore laga xoogay waxay ka mid tahay dhulka sacuudiga ka mid laakiin taariikhda waxaa ku qoran yalamlam inay dhul yamaneed ay tahay adduunku waa maartay manaarul arri waa la bedelay moogta meeshaas dadka Soomaaliyeed hadda iyo dayaradu meesha maraysa aan laga xirtaa dadka waa la soo gaari baa la xirto waa sax waay hadii hawadan hadday timid lagu socday moogta waa lugayahay meesha la sii maray markaas laga xirahay marka cid walbana meeshay ka timaado haday meeshaas ka xagayso ama miiqaad hadayna lahayn say u soo aadayso xaramka dadka markaas ugu dhow miiqaad markii la yiraahdo kuwaasay ay markaasi haday la simanta ay xajka xiranaysa ay xarmanay waa la taga Madiina tagtay Madiina dul Xulayfa meesha la yiraahdo laga soo xirana aabaaru calina waa la dhahaa lacala waaba gudubtaba adiga Madiina tagtay moogtaa muhrimna ma tiide saadka soo joogtay oo nabiga soo ziyaaratay alayhi salaam waa soo cibaadaysatay marka la soo naqahayo miiqaadka ahlu Madiina ku miiqaad ilaan kaaga waa soo dhaaftay moogta waa soo dhaaftay kaaga taas waa maartay bishi marka cibaadada soo aroorto wax badan acmaash xajko dhan الحج عرفه نو ما دهينو معظم الحج عرفه واي markaasi wuquuf عرفه marka waxaas badanaa ku soo arooray dadka muslimiinta sharaf iyo maqaam ugu soo bishaana la gelay bishaan soo socota muharram sanadkii islaamka waay oo hijriyada marka hijriyada goorma laga bilaabay hijriyada yaa sameeyay waxa sameeyay dawladda islaamka oo sayidina Umar ibn al-Khattab islaamku aad u balaartay oo xoogeystay waqtigaas taariikh dheer iska leedahay ma sagelayno laakiin taariikhdan hijriyada oo marka muslimiintu iska leeyihiin sayid Umar sameeyay ama muslimiintu ittifaaqiyada waagaas la sameeyay macnaheedu ma ahaynin meeshii la rabaha la iska aado علشان waxaa jiray waxyaabahan kala waa jiri jireen
لو تاريخها مارتين ميلاد عيسى أنت أسأل لقى جوجا واجر تموت والنبي بعسديس يا بنت أسأل لقى جوجا نبي عيسى لا ده موت يا شن بقولية طلبات سنوية وعسل إلى موت ولكن مركز سنوات إلى مركز شيء موقده إلى المسلمين توا إسلام كوا وين هذه موت وحوجي سياسة حكومة بوقت سيد عمر جرى قال هبجوك قال هذا كرما جرى بيت المقدس يهودي يقول جوغان سيد عمر كحولي دقال كدعي والوغا dad badanaa ku hoobto yahuud waaba isdhiibeen bamogta nin hadda maanta tegi kara ee xuray kara ma jira muxuu ku xureeyay wuxuu ku xureynayay iimaanka oo qabo iyo diinta islaamka oo haysto taas uu xureeyay awood kale ma jirin ayaguba carabo hadda inay ku duusho kama xureeyay kara yahuud ka xureeyay yarlaas u qaad arlul khaliil alayra kama xuray kara marka dad kale badanaa jira marka waxa uu heesaasay yahay marka hada maadaama wax hadda toos oo la raacayna jirin sayid Umar markaasi waxa waaye saxaabadii wixii markaasi kulli jooyo dadkii taabiciinta wixii joogo aal isku yeeray ruuxa muslimiinaan hay aan samaysanaa leeyahay taariikhduna dhacday ku timaada fiir dhacdo taariikhada leeyahay meela lagu asteeyaa sideedaba asteynti marka dhacdooyinkii islaamka soo maray xagee markaasi waxa weeye yaa ugu munaasabsanaa in taariikhdaas ugu bees kareeyo markii la isku celishay waa la hadlay moogtaa warkii waxa u batay marka in dhacdadii hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam maka uu ka hijroonayo taariikh weyn ee xaalad ay ahayd yaab lahayd moogta taariikhdaas lagu bees kareeyo hijriyada markii lagu leeyahay saas waay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam quraysh inay u showrtay dhowr arrimood inay ku sameeyaan ay ku tashahayeen waid yamkuru bika alladina kafaruu liyusbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka yaay ma dhihino wala tashay baarlamaana meesha meel ila daaru nadwa baarlamaankoodii wahay moogtaa la isugu tagi jiray wala isugu taga marka waxa shir gudoominay إبليس أشر بدوميناي إبليس ما يسمى شبه مركه oday oo maartay carabtu taqeena oo la dhigi jiray sheekhu najdi oo dhankaas maartay sharqiga dhanka dhulkaada sacuudiga la yiraahdo meel ku taala najdi la yiraahdo oday joogi jiray oo oday nabadoon ahaa jiro magac loo nabadoon sidaas anaga dhaxna waa mug asi aan odagi ma ahayd shaydaana iska soo dhiga marka shaydaana ninka soo meesha kursi loo soo dhigay wala weynaya waa sheekhu nadigiyay fiay hadda dadkan meelaha qaar kood loo shiraayo ibliis waa jooga soo hebel la leeyahay jooga waa dhici kartaa hadda oo la leeyahay ninka shir gudoomay meesha oo laga heebaysan ila waa ibliis laftigiis ila tashakul sameeyo bog shaydaan wax ka soo iska dhigay nima taqaano oo iska dhiga xataa waana shaydaan ibliis ka weynaayo mugta malcuunka ah taariikhdaas waa dhacdeed waa wax oo maartay oo mashhuur oo loo ogyahay waa calaashan wuxuu doonayaa diinta islaamka wixii lagu lugoy lahay ama nabigan looga takhalusi lahay inuu sameeyo dadkan uu ku sameeyo ilaa nabiga nabigiina moogta marka waxa waaye waa la hadlaa wara ra'yiga la isdhaafsanaya moogta baarlamaankii oo Quraysheeda la fadhiyaa wara waa aqoonaa ilaa hadda meelaha baarlamaanka lagu sheegay waxba uu la isku weydiiyay moogta markaas nabiga ilaahay u sheegay aayaddan oo ku soo degtay markuu nabigu Makka ka baxayay وإذا يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أجي إلهي وفحص بحثا يقول مكر يمريقا إلى مكتل أيقنا مكر يقول إلهي كجاسنا والله خير الماكرين واي مركا تاريخ ده هجرية ده سيكون مذي ساس واي هذا ما هي جوكتا كن أفر بغل أفرتن إيه تضبع هذا السيرة ما هي سوما سدح بلافر بلكبعد أفرتن سيدات ليسا كن أفر بغل أفرتن إيه تضبع هذا الجبنة أيه
talaadadan soo socota hadda beri sabti sawma waxay tagaysaa meeshay tagaysaa 48 ay tagaysaa waagaas laga soo bilaabo ka waran waa meeqa qarni markaas 14 qarni iyo maartay ku dhawaad qarni barkiis waay 14 qarniguna waa 100 sano intaas la soo maray waqtiga nabiga kaleey salaam ma kala laga oo ka hijrooday marsa laga jooga meeshaan ma ku taalaahay annaga qof qarni noolaahay waa nugu yar yahay 100 sano qofkii la arka qof adduunka dhan laga sheekaysa war hebela 100 gaar ah leeyahay wax joogta qarniba ma gaariinaba amba waa ku dhawaahayna amba nuskiisa amba jiidanaynaaba bas waay 40 sano hadii la gaaro nuqsaana soo socoto qofku gadaal u socona intaas ila xaytaray waa laakiin sideena axnoo khayr badan dadka kumanaanka noolaa jiray waa adduunka kumanaana la soo noolaay kumanaan ayaa la soo noolaay culumta oo badan oo waxa jirta oo maaragtay aad iyo aad ugu tacalluqda cimilada maaragtay waxyaabo ku tacalluqa caalamka ayaa soo jiri jiray oo hadda dad yaro culumta aad iyo aad wax u daraasay ay og yihiin jira waxa weeye wixii nabiyullaahi ciise ka dambeeyay caalamka waxa laga rafciyay cimilo oo markaas noolaha qaasatan bani aadamka u saamaxaysay inuu muddo badan uu joogi karo cimiladaas waa la qaaday cimilo waxa la keenay markaas noolaha basharka wax badan oo san joogi si dad kale oo soo joogi jiray meelay ku qoran tahay taas laakiin maslaxa noogu jirta dadkaas waagaas joogi jiray cimilada maanta aan ku noolnahay kuma noolayn marka nimankaas marka sheekhu najdigaas ninka la baxay ibliis oo ahay asaga shirgudoomiye ahay marka shirgudoomiye meesha ka yaani ibliisada sheekhu najdiga ay sheegayeen wadankii meeshiisa oo jira najdi oo jira gobolkiisa oo jira laakiin ay waxay u haystaan inuu adoogyahay u haystaan odogyaa loo haystaa wax mudawana waay markaas waxa weeye ilaahay yaa quraanka nabigu u tilmaamay waqtiga waxa la yiri mar waxa la yiri ninkan xabsi hal gelshaa la yiri alla xabiso waa boodiya ninkaas markaas leeyahay war talamihiisiin oo dhahay liyusbituka waa muqt war talamihiisiin oo dhahay عشان وحاوي عداد شرتين نكا حبسة داقيسين نكا وحاوي دادو ليه قبيلة وليه ولا سود دولا ومضبط كرائي ما هاي حبسة حوغا لو قبح ساهولا حبسة حوغا بس حبسة ومكرا هولا وحوين لقود قورها موقته وفق حبسة كجر هذا الرجال لقا قبح موقته هنا وصابر تلميسين ولا ما ورقة كنا قدر وعلى إرادة نسي ورك لود نكا هلا مسافريو أو يخرجوك هذا مكته سورة الأنفال ملكان هلقى صافر يالي مالك أنا اسكي جين أي قريش لا ذي مكت وقرأ بدت كيسي والنبي عليه الصلاة والسلام دتك قوة درن والو هذه تاريخ ده مركز الدنواب بود يسوق قيد شمرك شيخ النجدي وقيلي هدنا ورحمة ما قرتين ولا سوى إذنك وإبليس مكته maxaa yeelay wuxuu ninka daas musaafirsiiso ninkan ma arkaysiin oo dhan cod wanaagiisa balaaqadiisa soo dadku soo jiidahayo soo arkmaysiin meel uu tagaa u dhax meesha ay geysiin oo dadka soo sameysana intii la arkaa raacaysa hadhow weydin ku soo duulaya dad uu soo lay maana markaas duulaan uu soo qaada u dhax idinkoo meesha ma ka fadhidiin talamaysiin war kala keeno go'aama hadana waa la isku laabtay muddo badan habeen dhamaa la shiraayay aakhiru leelkii mar aheedo nabu ka baxay meesha waa loo tashado haya waxa la jira rasuulka kaleey salaam asiid Abu Bakar Sayyid Ali iyo wiil nin dhalin yaraana meesha nabiga waa fiirsay in moogta meelo jeefay Sayyid Ali markaasi meeshiisi meesha uu jeefay fiirsana adigu seexo dhaama Ali yaa saada marka meesha marka ayaga waa fiirayaan Ali yaa meesha jeefo nabiga uu qabaa waa kan meesha
jooga waa dili kartiin isleen waa fiirsado waaya ilaa waxa iftiin kama jirin meel xoogaa mukaab halkaas ali dadka yow yaartiisi ku islaamu ku jira suu marka sida wakna nabiga alayhi salaam raacayo waayo xoolihiisa ku baxshay oo maartay taariikh dheer waa taasiigeli maynay marka waxa la yiri go'aan hadana waxay gaareen quraysh oo dhan hal isu keenay quraysh la isu keenay quraysh qabaa'ilkeeda wiil ha laga soo qabtaa nin dhalinyaro ninkaas dhalinyarada seef loo dhiibay quraysh oo dhamo iskula jirta hal mar muhammad seefta la saaranaadii adilaan ninba mar seefta hal mar hay iskula kulmiyaan alaashan ma asaa soo jeeshay hal dilay dhahan marka hal diladii laftirkeeda u macad ninka sheekhu najdi waash iblis waa mog hal dila markay dhahan waa la dilaa hawna laakiin dilida aydin marka aydin qaabay oo qaabka u dilaysiin quraysh laga keeno dhaay nin dhalinyaro qabiil walba laga keeno hal mar seefta iskula dhuftaan oo dhama alaashan waxa uu diidayaa hal dila hadii leeyra qabiil qabaa'isha kamida doo dilo hadhow waxa iimaanaysa aana qabiila dhalanaysa aana qabiila leeyso qoladii maartay waxa nooga dishay ninkan anaga u naxigee dagaala imaa kara hadhow aarsiya imaahay laakiin hadii wuxuu yiri quraysho dhan haday hal mar wiila laga keeno hal mar ay seeftiisa saaraan diigiyo dhan igu wada galaya loo qabsaa mar ninkii sii xigay hay adigu waxa ka dishay la leeyahay ha ma haysataa anaga go'aankaas markaas waa loo sabciye mar sulkuna arinsa soo ogi moogta aydan waa soo digta mar waaba ka socdeen moogta ka socdeen waxay aadeen markaas madiina loo jeestay madiina laakiin dad waxa jira nabi kaleey salaam aqabatul ula aqabatul thaniya dad waxa jira reer madiino waxa way dada imaajira nabiga maka loogu maajiray bay'a la sameey jiray ina islaamaan ay wadankooda ku naqan jireen nimankaana waa laga qaraaheeday dad badan jira dadkii soo dhaweeyay nabi kaleey salaam markuu madiina tagay dalac albadru alayna min sanayatil wadaa'i dad oo meesha nabiga u yimiday oo islaamay ahaayeen oo laakiin aan islaamku u kala baxbaxsanayn laakiin shahaatay kay qabaan inta soo dhaweeyay dadada si abuurta nabi kaleey salaam waa badayn saxaabada hadda maartay asxaab bay'atu ridwan dadka la yiraahdo kutubtu waa dhigay igo waliba tiradooda cadadkooda waa la yaqaan markay baxeen hadee waxa weeye markaas rasuulka kaleey salaam Abu Bakar halkaas ay ka baxsadeen meel Makka hadda Makay ba saaran taabo Makka daa tagti waarkiisii meesha la yiraahdo Saw meesha sii galeen nabi kaleey salaam ina daaleen Makka hadda ay qayb kamida waayo hadda waa la tagaaba qaarkaas waa la tagaa dadku waa tagaan meeshii godkii ku yeelay galeen dadka waa moogtahay dhulka hoostiisa buur oo ashaq fil jabal la yiraahdo dhulkaas waa buureelay moogta meeshaas markay galeen waa la soo daba galay meeshii markii la tagay markii hal dilada hadii la isku raayo waa sidii alla yar hadda hal waagu iyo bariina leey ninka laga takhaluso markii nabiga la aaday alayhi salaam meeshii ali yaaba jeefaba arwaa baxsadaa leeyay marka Abu Bakr fiish labadaas ay isla saaxiibo ayeen hal raacdayay raacdayskii waa la soo qabowaay waliba meeshii waa tageen kulkiisa iska marmaraya waa markii sida Abu Bakr dhaay law nadara ahadun tahta qadamay la ra'an la absarana sida Abu Bakr aad u cabsahay ilaahay ya ka qaraayay moogta adeenin ay kamid ah saas la oo dheelay waa noo jeedi lahaa Abu Bakr meelo galamada wuxuuna asaga moogtaaysa nabiga la dilaa ma asaga naftiisa uma jeedi hatta iimaan kaas waa moogtahay yaan maxabada nabiga taas waa saxda warka marka hadda taas waa siira dheer hadii la tashaday dawladda islaamka oo Sayyid Umar hogaanka ahay taariikhda aan samaysayno oo wax ku xisaabahayno waxaan ka bilaabaynaa waagaas hijrada nabiga kaleey salaam dhacda taariikheed weyn waa mug markaas koob nooga dhahalay nabiga kaleey salaam markuu oo tagay Madiino dagaalkii Badr waxa uu dhacay maartay 2 sano markay taariikhda hijrada
واتي تاريخ وين كدعدي واتي نمنك سناديد قريش رجي مدحضورها هيو تلادو كغوداي إلهي سبحانه وتعالى إن هالكاس جيي لقول لاي dadki sanadiidi shayaadiinta ay meesha ku dhamaadeen 7 waa ku dhimatay 7 waa la qafaashay mar ya Abu Jahl kamid ahay ninkii leeyahay Umar ibn Hisham leeyahay jiray nabiga adeeru u aadanay rag badan kamid ah Umayyah ibn Khalafa kamid ahay ninkii Sayyid Bilal gumeysay jira adoonsaaya iyo ragaasa kamid ahay shaydaanka ahay Sayyid Bilal maaratay in halkaas fariisiya dhagax inta ka saari jiray يا وابدين رجعس هاي ماشي أسيك هو قرب بروجرامبا نبينا واقبع عليه الصلاة والسلام تاريخ بمركب وحال وقت السيء وقت قصار التاريخ ده هذا ما أنت أو نوضة معها كن أفر بقول أفرتني تضرب أي هذا جواب سنوسيته واجا سيك سوق بلا بنيس dadka muslimiinta maqaam weyn iyo ay ugu fadhidaan waa markay diintooda jecel yihiin oo diinta ku socdaan oo ay weysaan waxa laga yaabaa in meelo xoogaa kalandaryaan dhig la isaga soo qoro qof taariikhda fiiraysa wax lagu farxo waay wax la xuso waay gaalna muxuu xuso waayaa janaayo xuso waaya janaayo waa aragteen sanadka cusub dadku waxay u yaqaaneen sanadka cusub bilaada qof kasto caruurta xataa waxa lagu tarbiyeeyay ciyaalka hadda ilmahan meesha iyo dadka waxba dhaliyada waxba kama taqaaniin laakiin sanadka oo maaratay miilaadi ku sheegayeen janaayo markay imaayso waa ogyihiin waa u sii dabaaldegayaan baararka la tagayo hoteelada meelahaas la sii tagayo wal xaal la tuma shaydaan ma iska leh moogta shaydaanka shaqadiisa la qabaha la shaydaan ma iska leh moogta intaan shaydaan ma leeyahay هذا هبيننا صوت الثلاثة وكلنتود أبدا أدونك دبالدك وهي الرواية غيابة لكن مدان كلا أو بالله اللي رياض هي الهداية وحلا وحيها تصل فسق يا كجرة إبليس دبالدك هو عمر واحد النبي عيسى الله نسبيه أنا ما هنتاس واحد شيطان سما يستوى أيضا سامر كزاد آل يقانا أوي مركا أنك هجرتي النبي عليه الصلاة والسلام مقام كاسية إسلام كوحصول هذا حقين نجوك تامر بين حالنا وهذا رواية وهي عبديه يسامرك كعمل فلا أنت دين الإسلام أنت مسلمين تنين والبقالوا لحرتي ليه والبقالوا لحرتي لكن بروا والغش لايا يا بروا والغش لايا نبي عليه الصلاة والسلام هو ده لما نبي نوي مدور ده حديث صحيح وموقته يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم نين يا جعل قوم وجعله قوم كان هذا مركز نينكاس وحو لا جيداي دد wanaagsan oo markaas nabigu uu kamid yahay oo kowkaya dad saalixiin oo jecel yahay laakiin ma heleeli kariyo maqaamkooda cibaadadooda darajadooda ma gaaray ila dadku isku darajo ma ahay moogta see waa ما النبي مركز هؤلاء أنت مع من أحببت يوم القيامة قفك جعش لجركي سادو قياما نغنيسا وهي هذا مركز إلهي هي وحلق مقاري كريه هدان قال جعلنا يا ومارت يا قال زمنك سوجي وكو هد الجوغة يا هدان جعلنا إلهي واكا ورغب هذا كنت معه يوم القيامة بعيسى هانسا ساس واي من تشبه بقوم أبا لقن كيس هذا يلا تو أصلا إسكتك دقة والله يسوق كيسيوها وحبض هذا الذي يلزم من كان جوته وحبض أو قال درار كيسا تشبه واي حقة من حيرة شدي ولا يسشبه واي مثلا هو وحيابا أفضل حمار لأن يراده حتى غرق ما هنتاس لكن ميلو داجيو هاي وين هذا ومجلا يا قاركود إسرائيل ما كعرية كما واب إسبوع إسكجر لكن أين كيف كرتالها يا ديك شوعي أو مارت يا كوريا هذا هو خوي جاء حيرك كاسال وأركمك والله يسوق كيسيها وهرانا مركزي وعواي مايكل جاكسون الله ضاجي جري
ديك أمريكا كمدوها هاي مريكا كمدوها هاي أو شيطان كهاي الله يسوع كيسي جري وأي كسيه رئيسي وعاد ما كان الله جري ومبلي يا الله جري لكن كاسار هو ومبلي جاهونا لكن أنت قاعد تسوي مجاريني حلقي ما أرتولد الحوار مكتسية تمييدي كسيه روا ملاس هذا تمييدي قال يروح ساسيني جري وأكي ومبلي جاهونا ورجال إسكعادي وأي كاسوار وراي لكن وحوي كاس أفكر تمن كم جاب سجري تما هذا إسكب حد بات ماله موقته لكن قال راجسة لديده يا أحمد هو مشاكل موقته وحياة بدنا إسلام كايسته مركب مشاكل كجروا كذا تاريخ ذا نده وحويني نوفر ذا وفود دبال دقيسة وحويني هيسة نبينا محاقب صدي دين الإسلام كمحل قصوم مري ورمحين وقطعي ما لا دهاي وحين كسعة واق هلالية واي بشاس هلالية للا تاريخ هلالية على دها وبشاس كسعتها قفكنا وحوي مركي وليبا سنق الله حساباي والوقان قارا فير إذا الوقان قارا هي حج كيني أعماشين ودن وحي شهري أيضا كنت تعلقها صونك أصدق واي صونك جناية في براي ما الوسومة هي ديسمبر اللي جوغا الله صوم ما له هو هاي يا كايل إليه مكايلة بل هذا قال بل هذا أو وحلو قبصاي مارتين إذا كوح عبادة لو سميها محان الدبر لغاية مركواي هاي هذا سؤال هذا يكتم هذا بجو ملها dadku inay maqan yihiin saasa kaaga daliil adwa ka waramaysa mala ay ramadaan la gaaray ramadaanka xataa waxa waaye laga ma warqabo shacbaankiina la sii labdiyo maalinta uu dhalahayo ramadaan waqtigaas uu ku dhala kara haduu soddon ka dhameystay hadii maartay 29 ku dhamaatay qof uu markii uu la gaaraa alla iskhilaafa قالوا هؤلاء كاسكو سومي ما يوركيسا كان كذا انت خلافها كتاغ وحاوي وحاي يلايا ضدك اسلام كاسم ربان على الهي دخدغي اسم جعوه سومالي ما قام يلا كلا سومه لا كلا كلا افرا نعيب اي سوق بان وادد ما بشان وحي هلايسا ما جرت شريعتنا way iska cadaayo wixii isku madlaca kama soo qaadba khilaaf kala iska daaba وهي اسكو أركتي بشيء سلجي إن إسلا صوما واجب يكون الدين لا حكميه ماذا رأي واحد صعبة كما جيران وليه أنا إسكيك أنصعاه ما إسلام كيو كلا تجا يضع فيها تفرارق ما هو ولا ذاك الله سواء اللي سحنوه اللي سدلاي وعصا أبورا ما هو أصلا ما أقوله مركز تاريخ ذا هجرية ذا وسود وهنا سنة ذات عصب وامارتها إلهي سبحانه وتعالى هذا سنة كان بش أنا بحديث كي نبغى أتوه مكتب مش عرفوا وأتوه رسولك عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر لي السنة المالية وسنة الآملة السنة دي للصوص يمد الصوص عط إن إلهي يقول عف حديث قوة آيان يدل قادر يموت سنة هذا أو مارتي مال جاي وسنة هذا ما هاي سنة كنبو شيء جاي سنة تلا صور دافع الله يقول دافع قف كسو من السنة صور كلوا يبوكت سنة كصوص عدنا وامد كهذا بلابناي ومارتي أفرتني سديدة متك بلابناي وهذا أنجلي نواه أجر كاسال غيره في مناسبات غيره هي جماعة في براي هداي دمبيا اللي يقول عفوا مالي كنت على الماجر هي ديسمبر هي أكتوبر هي جيني جاس ما دمبيا يقول عفوا ضدك ماجر مال يقول هي ماجر مع إسلام ككل ميتيس مع أوديني عمل فرص عامله سنين عمل لكن أنت عامله الحمد لله قرآن كاسنت وجودات عاملين هجو هذيك الشرط ما إن ضدك أدمارت حوك إسلام وحبا شغلكم داد ادو تاada ku adkaysato waliba calaamaadka maanta jiro akhuu samaanka nabu sheegay maanto kale qofna inay hadaysa cidna aan la wacdin oo naftaada ku ekaato bis waa raaxaad ku noosh sharafay ku tahay qof hadaada u sheegay cid isoo haysata ma jirto maanta
وعوي النفط أن تضحية جلي أو إسلب أو وحون زيادة واي لكن هدانا ما أنت هدانا وحبش شيء عندنا أي موشي وحق صالة سميها وحنا قصار من جرتمان عليك بنفسك يجوبتا آيات عن تفسير كذا سورة المائدة سيد أبو بكر مركو فسيرها كبعد النبي عليه الصلاة والسلام أو فسري عليكم أنفسكم لا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى تدكم مؤمنين تهو مارتي عليكم نفتينا كشقية كل أكاد نفتينا لا يضركم من ضل قف باديو بإذنك حما إذن جيس مايا هذا إذنك هنونتين آيات دا صنبو عليه السلام مرة تأويل كذا إماده نوضا هذه مركز نبغى هي وقت هي أسعى لما جوج المركز هذا تأويل كذا مرهر من هذا بقول الله سنة كون آيات تأويل كذا وايد لا يضركم من ضل وايما آيات يصير أستحي هذا نه إن وحلا شيء أنا والكوا هاي ضد مسلمين هاي جوجا ضد إيه ونفط هذا وعمل فلا جوجا ضد دين تودا هيستا جوجا ضد أبو مارته عد بينا شغل كل هاني كواسا مركا وحال ربا إني وحتامان ضد كان هذا مارته دليرada wax dadkan wax dhigaysay dad wanaagsanaa ku jira oo wax fahmay oo caamiliinha ku jiray diinti ka faa'iideysay qofkaas la hanuunshan ajir badan laga helaa oo anaga hada nama saara laakiin ajir doonaan ajir la suwaa la yahdiyaka Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humri ni'am rasuulka alayhi salatu ajra la raadiyo haya mooyaan hada waa in dadka la waxama waajibtay ma la jooga taas waa la soo dhaafay taas وحديث إلا يسوق جيال ربايته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تأويل فسروا ليه هذا كان إسكدلا يا إيه معهم مركز معهم فليغيره بيده شروط إسكلا هذا مركز قعنتا هذا كودي منكر كهور تجيس لسان كلفت الكيس شروطه إسكاليه هذه اللوائر أضعف الإيمان بواي قلبك الله قنع وتاس مر والبواسع راي قفك مسلم كان إلى قيام ساعتي منكر كإنات قلبك ككات واجبك وتوعى أنت على بدن كلا داويس قال إنات كنغت منكر معها أضعف الإيمان الإله معايا روايات كلام وحي هذه ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل نوله نو هذه اللوائر قلبك لغا كهذا منكرك wax ka dambeeya ma jiro iimaan ka dambeeya ma jiro yuura asawasankeed wax loo iimaan hadoo qofku intaas laga waa iimaanka Ilaahay waa ka siibay wax iimaan qalbigiisa kuma jira mu'min maaha maxaa waxa xadeeya xadiidka xadeynaayo marka Ilaahay idankiisa sanadkii hijriyada saasoo maartay oo noogu dhamaaday sanad cusub la gelaya asagana Ilaahay khayra u rajeeyna لا إله وهو يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والإله نعريس إليك قوسمين ضدك إلهي يا سوها لها سوهروش قفك إلهي اكتيسه هداء ورقان طواعي مركان ساس لنا قفان إلهي هنوني فمنون النار كقرا مسوها نوناي لكن ضدك أضو وحكمه قديم بوقتها هل هذا فعل حنكجر وأدعيه أضو وحكسو وهذا ماذا تقان موقته إلهي تعالى هل ما أنت لغا يابه إنه خير كسويا خاتمديس نحما تهدو أهل النار نغكرا وحنا صار محيه المركة رسولك أولي جرموك اللهم هدي لقومي فإنهم لا يعلمون لويل النبي نوح وبدنا دارين تاس نبي نوح ضدنا هدان إلهي خير لرهبين بقول سنة لوير هدي لرهبين فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون إلى وراكم مدينة سورة العنكبوت ما جفتوها نبي نوح لقى ورماي كن سنة أو كنت لا سقال بقول كنت سنة ضد وحلوش شيء يا ضد لقى واي مثل محمد أبو خير بضم ما يقاهن سنة نبي قال أساس وقلت لي واحد كسول لو سمي والدين جرحته سميل وطور جرى خبار ما يدك فورا
اللهم اهدي لقومي إلى إذا ما قبيه بوقته إلى قوم كي هنون وحما قرتان أو ليه وحما قرتان أو سكليه نبياشنا الوضع يستوى الهبا هذا ما أنت نبكى الصهجرة اللهم اهدي وادك الوضع ذاله هذا لو الشيء نبكى الصهجرة ولا الددالة أنت تبر ولا الددالة مركا وما دينا لها إن شاء الله تعالى إليها نهنوش الله سبحانه وتعالى دباتها أنا قاسكو هاينا السيدي دباتها أي نوغتيجي لهذا مصيبة إن إلهي أصول نقنوايه إلهي تسنوها الحمد لله وصلى الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن لحقنا إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين صلى الله على سيدنا محمد.